waxaan caawa halkan iskugu nimid laba munaasabadood oo saaran oo ugu horeysa sanad guuradii toddobaad ee ka soo wareegtay markii dalkan UK laga mamnuucay qaadka oo dhibaato badan ku haya shacabka Soomaaliyeed ee halkan ku nool taas oo runtii markii la joojiyay sababtay in qoysas badan aabbayaal badan ay dib ilmahooda u helaan isla markaana uu yaraado khilaafkii faraha badnaa iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee xagga qoyska ka jiray waxaan joogay oo xasuustaa ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska Theresa May iyo Abuukar Cawaale oo Home Office ama wasaaradda arrimaha gudaha Ingiriiska ku doodaya oo uu leeyahay qaadka hadiina naga joojinin ummadda Soomaaliyeed aad baabi'inaysaan ayaduna ay dhageysanayso waxaana loo geeyay hadiyad Soomaaliyeed iyo wixii dhaqankii Soomaaliyeed waxaana loo sheegay dadka Soomaaliyeed inay ka soo wada horjeedaan qaadka in yar oo dana gaar lama ahane waxay daliil u tahay Abuukar Cawaale waxa uu silcay u rafaaday oo tooriyada loo geliyay inay wiilal iyo Soomaaliyeed ay caawa aysan aqoonin qaad suu eegyahay yar oo dhashay maxay yahay aabayaashood ma cunaan sidaas awgeedna shakhsi waxa weeye ku dayasho mudan ka culimada hataa kutub ay ka alifeen oo sheekh yamani ah oo kitaabkiisa macnaha uu magaciisa u bixiyaba macnaha laqaatu wa hukmuhu ash-shar'i qaadka iyo xukunkiisa sharciga ah culimada maanta joogta ay kamid yihiin hadda dhintay laakiin Sheikh Ibn Baz uu kamid yahay Yusuf Qardawi dhamaantood macnaha waxay cadeeyeen ama ay tilmaameen in qaadka diiniyan oo dhibaato weyn uu keenayo saadarteed ay tahay wax mamnuuc ah marka dadka Soomaaliyeed macnaha meel kasta ay joogaan waxaa muhiim ah in ay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan macnaha qaadka khaasatan anaga hadda wadanka aan ka nimid ee Soomaaliya dadka dhalinyarta ah ee da'yarta ah wuxuu ku hayaa dhibaato aad iyo aad u weyn boqolkiiba 70 anaga dadkeena waa dad da'yar ah waa dad aan u baahannahay in mustaqbalka ay macnaha ay hami weyn yeeshaan oo wadanka ay badbaadiyaan waxyaalaha lagu baabi'inayo wadanka waxaa ka mid ah in macnaha bahalka daroogada ah ee qaadka ah macnaha aad iyo aad loogu geeyo si himadooda iyo wacigooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo aqoontoodaba ay hoos ugu dhacdo taana waxay keenaysaa in dadkii wadanka difaaci lahaa ee wax u qaban lahaa in ay noqdaan dad disable ah waxa ilaahay mahadiisa oo faa'iidadii ka dhalatay markii qaadka la joojiyay waxa kamid ah in wiilaan saaxiibanahay isnaqaano oo qaraabanahay iga sheekeeyay in hadda barigu jaadka cuni jiray markasto waa travel oo basyaashan wadanka ayuu wada problem markasta haysan jiray markii loo waxa xitaa la yiraahdo Abdi come because what have I done now he doesn't even know wuxuu sameeyay xitaa war uusan u heenin maantana nabadu qaba wandeli ima inuu yirtan jaadka markii la joojiyay oo jaadka iska dhaafay reerkiisa nabad ay qabaan naagtiisa asaga nabad ay isku qabaan asi ilmihiisu iska war hayaan markaan soo noqdo Abuukar wuxuu noo sheegay inuu ahaa nin qaadka aad u cuno kadib markuu arkay dhibaatada ay u leeyahay qaadka iyo go'aan ku gaaray inuu iska daayo ummadana ka joojiyo ilaahay uu tala saartay waa dadaalay oo wuxuu arkay oo aan lafteeda aan soo arkay lafteeda uu ahaa goobjoog ahaa islaan iyo odaygeeda isdagaalay mar dhexdhexaadinay waxay tiri haddii ninkan uu sheego caruurtiisa iskuulka ay dhigtaan ama GB meesha ku yeelin haddii uu sheego waa heshiinayna aduu ilaahay markiis waa bariyo waa ka yeesho had ilaahay waa ka saari laakiin waxa kaloo la ii sheegay nin qaad fadhiyo mafresh fadhiyo la yiri islaantaada uu mashi markaas uur may lahayd run ahaantii dadaalka saaxiibkeen oo qaadka ku joojiyay waxay ku fiicnaan lahayd anaga Yurub waa ku guuleysanay oo maanta illegal aan ka dhignay dadaalkii oo isaga hormuud ku ahaa laakiin inaan u fidino Soomaaliya oo dhalinyaro badan maanta ay yihiin dad aad ugu dhibaataysan meel walba bulshada ay naga gashay especially young people ka waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo Abuukar Cawaale juhdiga uu soo galiyay iyo maxaa la dhahay jaadka inuu ka joojiyo UK marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo una duceeyo Abuukar Cawaale oo naanaystiisa qaadiid ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajri xasanaad ka siiyo dadaalka oo ummadda Soomaaliyeed u galay sidii qaadka looga joojin lahaa guud ahaan meelaha Soomaalida ay ku nooshahay gaar ahaan dalka Ingiriiska oo ilaa hadda lagu guuleystay alxamdulillah intiisii badan aad iyo aad ugu mahadcelinaa Abuukar 7 sano ka hor talaabadii uu qaaday haddana waxaan leenahay waa ku garab taaganahay saaxiib hore u soco waadna guuleysanaysaa kuwa waxa ka hor imaanaya kulahay sheeka keent ina caan ku noqotaa rabta kuwa waxa ka hor imaanaya kula waraa adigoo waranta beerahan Ingiriiska leeyihiin ma ogid miya marka ilaahay baa xigmad ka watay anigu waxaan dhahaa dadku waxay garan waayeen ma garan ma aqli dheeri
xanuun aniga isoo maray iyo ilaahay oo masaladan ku sababay oo sal uga dhigay in intaasoo ummad lagu badbaadiyo sababta ah runtii xanuun weyn buu ahaa waxaan kaloo dhahaa qaadka waxaa loo joojiyey hooyooyinka soomaaliyeed oo sujuudda ilaahay ku baryayoo lahaa ilaahu bahalkaas mar naga jooji ducadoodii baa naloo aqbalay alxamdulilaah su-aashu waxa weeye maxaan ka baran karnaa ololihii qaadiid oo u k iyo achievementigaas la gaaray anigu young peopleka marka la hadlaya waxaan ku dhahaa weliba kuwa halkan ku koray waxaan ku dhahaa anigoo qaxooti ah oo marfish ka soo baxay oo limited english ku hadlaya oo akademi ahaan aan diyaarsanayn baahankayga soomaalinimo wuxuu siiyey ingiriis iyo baarlamaan inta u tago inaan dhaho qodobkan sharcigiina ku jira nama anficay naga bedela because community-ga iyagu dhib ku haya